عليكم أصحابتي شرفتي ما أنتوا حندوني هنا واحد كاغا شيغ دaawo loo yaqaan clarithromycin waxay qayb ka tahay group antibiotic oo loo yaqaan macrolides daawada loo yaqaan clarithromycin waxa ay daweyso waxa kamid ah pneumonia oo ah oof-wareenka skin infections oo ah infection ku dhaco maqaarka sida cellulitis-ka clarithromycin waxa kale oo daweysaa H pylori bacteria la yiraahdo oo keenta gaaska ama gastriga clarithromycin waxa la siiyaa bukaanada allergiga ku qabo daawooyinka penicillin-ka sidii penicillin V, penicillin G, amoxicillin-ka daawooyinka penicillin guud ahaan qofka infection ku qabo allergy ku qabo waxa la siiyaa daawo loo yaqaan clarithromycin daawada clarithromycin sidee loo qaataa marka daawadan waa 500 mg 250 waa la helaa dooska qofka la siinayo waxay ku xiran tahay infectionkiisa inta uu gaarsiisan yahay marka daawadan waxa la qaataa subaxii oo miraah iyo fiidkii oo miraah waa laba waqti waa subaxa iyo habeenkii ama fiidkii daawadan side effect-ga mise saameynta ay leedahay waxa kamid ah nausea and vomiting qofka inuu hunqaaco ama inuu labalaboodo kadibna uu hunqaaco waxa ku jiro stomach cramps sida calool xanuun qofka inay nabar caloosha uu dareemo sidoo kale shuban daawadan mode of action keedu muxuu yahay sidee bay u shaqeysaa daawadan bakteeriyadu waxay u diidaa inay samaysato protein inay samaysato sidoo kale daawadan waxa la helaa ayadoo slow release medication la yiraahdo ama slow release clarithromycin oo ah ayadoo yar uu jirku soo deynay qofka markuu qaato daawadan yar jirku soo deynay noocaan waa la helaa insha Allah channel subscribe noo saara follow my TikTok ila socdo